media aan la baxday media dugaal waa in lagu dugaashaa dugaal micnaheeda ma taqaanaa horta waa in lagu dugaashaa adiga oo gambasho lagugu xelaaniyo nin walaalkaygaa tahay aniga inaan ku caayo aan ku aflagaaday marabo laakiin wax sheegidaa isku leenahay wax waa ii sheegi kartaa anna waa kuu sheegi karaa wax sheegidaa isku leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa idin leeyahay ciid mubaarak berina waa ciid hadduu ilaahay raali ka noqdo ramadaankii ilaahayga noo dhameeyaa mahad leh maantana barnaamijkeena waxaan kaga hadlaynaa waxaa waddanka ugu soo orodnay waxaa waddanka ugu soo orodnay aan maanta barnaamijkayga uga hadlaa aniga sidaa ii jeediinba horta ciyaal muqdishaan ah muqdishaan kusoo barbaaray qabiil meel iga dhig muqdishaan kusoo barbaaray halahan aan ku dhammaaday xataa hooyaday aabahay iyo kulli lagu dhalay aan kusoo barbaaray waa beriyaana deganay inta itaqaana iyo cidda itaqaan dhammaan waa la yaqaanaa weliba waxaan degnaayey waa beri kowda maaja weliba waxaan kasii degnaay tareebiyaanan degnaay cidda taqaana way taqaanaa waxaana kasii degnaay muuse boqor eeriyada muuse boqoraan degnaay magaceygana arwaaxaa la dhahaa saqiirka dhashay maanta wuu yaqaanaa xaafadaas laakiin maanta waxaan kaga hadlaa qurbahana aniga waxaan ku noolahay 13 sano haddaa laisku wada daro qurbaha maanta waxaan ku noolahay 13 sano haddaa laisku wada daro jarmalaana ku noolahay okay iyadoo saas ay tahay maanta barnaamijkayga waxaan kaga hadlaa horta kuleelka idinka ma dareemaysiin dadka Soomaaliya joogo kuleelka idinka ma dareemaysiin laakiin kuleelka anaga dareemayno oo qurbaha aan ku noolnahay kuleelka anaga dareemayno qurbaha aan ku noolnahay meeshana waxaa noogu bilowdeen qabiil iyo waxyaalo saas iyo dhibaato war qabiil waxba ma sheego qabiil waxba ma sheego kii ku dhaho qabiilkaagi yaa waay haddaa lagu dhaho qabiilkayga waxaan ahaa leedahay waxaan ahay aniga qabiilkaygii nebi aadan anaga dhan nebi aadan aana wada dhalay dhammaanteen nebi aadan aana wada dhalay dadka qabiil sheeganayo dhammaanteen nebi aadan aana wada dhalay ma garateen tan kale aan maanta aan kaga hadlayo meeshaan waxay tahay horta qabiil iyo waxyaalo saasi horta markaan maqlo horta madaxaa lagu dhuftaa wallahi adduunka qabiila u nacbanay haddaa lagu weydiiyo waxaa leedahay adiga yaa tahay haddaa lagu dhaho yaa tahay waxaan leedahay aniga qabiilkayga horta koodii waa ibni aadan tan ku soo xigtana waxay tahay qabiilkayga waxaa waaye muslim tan ku soo xigtana waxay tahay qabiilkaygii afrikaan ahay aniga afrikaan ah qabiilkaaga yaa waaye markii lagu dhaho haddana afrikaan leedahay haddana markii lagu sii weydiiyey africa waxaa leedahay east africa sii leedahay weliba east africa markii lagu sii weydiiyey haddana waxaa leedahay aniga waxaa qabiilkayga uu ka siiya oo ku dhammaada weliba soomaaliya war maanta waxaana soo burburiyey anaga waddankeena naga soo waday ilaa qurbaha aan ku nool nahay xataa hooyadeena iyo aabbaheena xataa ilaa hadda aana soo booqan xataa ay ku nool yihiin waa beri ay ku nool yihiin waa beri ay ku nool yihiin muqdisho waa beri ay ku nool yihiin weliba kowda maajo eeriyada muuse boqor weliba gadaasheeda weliba waxaa maqlay
allahu mustacaan waxyaalo kale inay wadadeena ee soo baxeen maka almukarama wadada waxyaalo kale inay soo baxeen qiyaasahaas ani ma garanayo waxaas dhan yaa ii keenay ninka qabiilka ka hadlaayo ninka qabiil ka hadlaayo war soomaali waa hal maanta aniga aa ii jeedin qabiilaan isoo gelin male soomaaliya dhin haddaa la qabiilaan isoo gelin male soomaaliya laguu sheegayo waa wiil iyo abtigiis iyo wiil iyo adeerkiis runta haddaa laga hadlo yaa la gambanin waxbo barnaamijkeenna maanta inta waxaan kaga hadlaa aniga ninka la dhahaya magaciisa ii sheega dayax dugaal media centrum dugaal media centrum qabiil iyo niyo qabiilka naga dhaafa niyo dugaal media centrum aan la baxday ee ma aadna la bixin inay hebel ama aniga waxaa la dhahaa magaciisana waxaa la dayax saani ka maqlay afkiisaan ka maqlay magaciis dayaxa la lahaa dayax mo meesha ku qortay qabiilkiisa inuu meesha uu ku qoray dhag oo miyuu dhahay aniga waxaan ahay adiga allahu mustacaan qabiilkayga saas ama kusoo galay youtube ama amuu dhahay adiga allahu mustacaan qabiilkayga waa sidaas kida anna waxaan ahay magacaygana waa dayax media aa la baxday media dugaal waa in lagu dugaashaa dugaal micneeda ma taqaana horta waa in lagu dugaashaa adiga oo gambasho lagugu helaa niyo nin walaalkaygaa tahay aniga inaan ku caayo aan ku aflagaaday marabo laakiin wax sheegidaa isku leenahay wax waa ii sheegi kartaa anna waa kuu sheegi karaa wax sheegidaa isku leenahay marka hadda maanta waxaan inta kaga hadlaayo warbara ila daawada bal haddaa idin soo deynaya ila daawada bal wallaahi oo billaah dadka kommentida soo qoraay wallaahi oo billaah tallaha ku dhaawaa soomanahay dar allo afkaygu xiran yahay dirisle afkiisa waxaa laga hayaa inuu dhahay hawiyaha aad u necba hawiye adeerow qof walbaa necab maalin walbaa kaas loo nacaa maalin walbaa la caayaa hawiye marka adi inaa jeclaatid iyo inaa adi nacdid wax faa'iido ah soo kordhaayo bal maxaa aragteen hadda maxaa aragteen ninkaas wuxuu ka hadlaya qabiil iyo waxyaalo saas ayaa aragteen sooma war qabiil ma fiicno war qabiil anaguna soo burburiyay qabiilka lagu sheegay anaguna soo burburiyay allah subxaanahu wa ta'aalaana meel walba ayuu quraanka ugu sheegay meel walba ayuu quraanka ugu sheegay qabiil waxaa lagu dhahay horta wuu jiraa isku ogaaday inaan qabiilkaas idinka aniga aydan ka dhigay haddaa dhibaataysantihiin dhib laguma dhihin sida dagaal laguga soo qaado wax saas laguma dhihin haddaa dhibaataysantihiin ama waxyaale iyo oo dhibaato ay idin haysto iskaalmeeya sida aniga camal hadda ka soo qaad anoona waxba haysanin ka soo qaad waxaan ka hadlaa tusaalo ka soo qaad anoona waxba aana haysan anigoo waxba aana haysan marka maadaama aniga waxba aana haysanin oo isbitaal aan u baahanahay qaliin aan u baahanahay wax aan u baahanahay marka qabiilkayga markaasaan u baahanaho adiga in la ii qaaraamo oo adiga wax la isku dardaro soomaaliya xataa lagama helo qabiilka lagu sheega waa afka anoo ina hebel ah qabiilka lagu sheega waa afka runtadaa laga hadlo soomaaliya wax runta idan sheegaan la adigan wax runta idan sheego waan karkarnay niyo waan karkarnay soomaalina been way sheegtaa laakiin beenku mahmaahdo waxay dhahday dheriga karkarka maxaa ka keenay waxaa ka keenay kuleelka anaga waan karkarna niyo anaga ma aragtay waan karkarna niyo qurbahaan joognaa waana la cunsuriyaa wax walbaana lagu sameeyaa ma garatay ilaahayna qur-aankiisa meel walba ugu sheegay qabiilka waxaa waaye ilaahay oo idinka dhigay ilaahayna waxa ugu karaam badan agtiisa ninka oo ilaahay oo waxaa ii sheegtaa ilaahay ka agdhowo ilaahay caabudo kaasaa ugu sii karaam badan kaasaa qabiilka lagu sheegaayo karaamo badan ayada meesha dambe wax ka raacaya fiiriya war waxaa lagu sheegay suuratu takaathur haddaa taqaanin suuratu takaathur dadkaana garanaynin takaathur aan u garanaynin waa alhaakum suuratu alhaakum wa ma garatay maxay ka bilaabanaya sheegaba macnaheeda hor takaathur maxay tahay in la isbadiyo badniin waay in la isbadiyo ma garataade in la isbadiyo waay waa badniin takaathur alhaakumu waxaa alhaakumu hog waxaa u sugnaaday التكاثر dadka isbadbadinayo xataa waxaa lagu dhaha xataa ilamaa zur ee booqdaan tumal maqaabira qabriyada xataa ee booqdaan
ee dhahaan ninkaaniti arwaax la dhahay anagoo naga tirsanay qabiilkeenoo ahay qabrigoo ku jiraa xisaabtiyaa laga tagina ha lagu daro kallaa wallaahi dhab ahaanti ma aysan ahaan sawfa waa mustaqbal taclamuuna haddaa ogaan lahedeen ilaahay soo u digaya daya qabiil waxba ma taro qabiil waxba ma taro qoom dhan qoomucaad xataa ayaa yaqaan intayna ka baxeen ayaga dhan waxaa lagu laayay dabeel iyo roob aa lagu laayay ayaga dhan awooddooda xalay dhameed waa aragtay geedahay siiban jireen xataa geedaha awooddooda heerkay gaartay marka soomaaliya waxaa idan leeyahay qabiilka ha laga tilaabsado qabiilka wax jira ma ahan war aan isjeclaano war waan karkarnay waddankeena markuu qaraxa iyo dhibka oo ka dhacay oo anaga idaacadaha iyo kulli aan ka dhegaysano tv-yaasha aan ka dhegaysano wallaahi xanuunaan dareemaa ninkaan dayaxa la dhahayo maalintuu yurub imaan lahay oo dareemi lahay qabiil wux allaala wuxuu galo oo wuxuu gudo waa cadow qabiil laguu sheega waa cadow anaga a isjeclaano oo waddankeenna allah noo hagaajiyo xumaanna way arkin waa nin walaalkayga ah waan jeclahay waana ahaana hadda aniga inaa usoo duubay tv-gan iyo waxyaala saan iyo oo in oo aniga youtube-ka aan soo geliyo waxa iyu kalifta waana ahaan la inuu qaato laakiin ma ahan in oo aniga asaga aan ku xumeynayo waa nin walaalkayga ah qabiil wuxuu yahay anaa ogaaday ilaa hadda dowlad ma arkin xilliga lay dhalay ilaa hadda dowlad ma arkin jarmal keliya dowlad ku arkay dowladda macaankeeda markaasaa dhiminay laakiin maxay ku taalaa maxay kaaga taalaa horyaa waxaa loo dhahay dalaadna lahayn dareen ku joog dal aadna lahayn dareen ku joog dalkaan anaga ma lihin dareenaan ku joognaa duruufaanna keenta waddankeena maanta dowladd hadday ka dhici leedo wanaagsan oo sida jarmal camal wallahi intiinaanan joogi lahayn waan ka soo tagi lahay xaggaan imaan lahay laakiin in duruuf iyo dhibaa igu haysto haddaan imaado qaraxaa jiro dhibaataa jirto qabiil war qabiil maxuu taraa marka saaxiibkayga intaan ka salaamaa dugaal media waana intaas waanay iga tahay saaxiib waano ayay iga tahay intaas waa nin walaalkayga aan jeclahay dayax mediaha qabiilka dhaaf nin walaalkayga tahay waana ku jeclahay wallah qabiilka iska dhaaf waxaan ka dareemaa weliba aniga dadka luqadahoodaan kala garanaa wixii ka soo baxay dhan soomaaliya laakiin maadaama soomaaliya dhan anaga mid aan ahnay ilaahu geli gashanaad meel walba mid aan ahna anaga laakiin waa inaan isjeclaanaa meeshaa ka soo baxda ayaa anigana ka soo baxay oo muqdisho luqadaadaan ka dareemaa qof walbana luqadiisaa laga dareemaa maanta jarmalaa ku nooshahay jarmal haddaa lagu dhaho dadkan oo jarmal caddaanka haddaa dhahdid qabiilkaaga yaaway ma yaqaano wuxuu ku leeyahay aniga gobolkaasaan kasoo jeedaa gobol keliya kuu sheegaa war meeshaan in la islaayo adduunka intaasoo dagaalo oo ka dhacay heer waxay gaareen hadda waaba isnacbannahe see u wada noolaanaa oo weliba soomaaliya weliba hal ee tahay weli adeerkiis iyo weli abtigiis marka saaxiibkayga qaaliga waan ku salaamaa ciid muwaarigaana ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu